Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Maanta waxaynu baran doonaa labadan eray between iyo among. Maxay isaga mid yihiin? Maxay ku kala duwan yihiin? Between, erayga between is a preposition waa meeleeye that applies kaas oo khuseeya ama ku saabsan to two people, laba qof, or two things ama laba shay. Between waa u dhaxeeya. Marka laba shay waxa u dhaxeeya marka la tilmaamayo between ayaa la adeegsadaa. Example, tusaale ahaan, they built waxay dhiseen, they iyaga built waxay dhiseen a fence, xayndaab ama ood ama deyr between inta u dhaxaysa the two houses, labada guri dhexdooda ayaa ood ama deyr lagu sameeyey. They built a fence between the two houses. They are iyagu building waxay dhisayaan a bridge buundo between inta u dhaxaysa the two countries, labada wadan. They are building a bridge between the two countries. She stood between his parents. She iyada stood waxay istaagtay between inta u dhaxaysa his parents, labadiisa waalid. The thief, tuuga, was hiding waxa uu isku qarinayay between inta u dhaxaysa two trees, laba geed. The thief was hiding between two trees. He got stuck between two rocks. He isaga got stuck waxa uu ku dhagay between inta u dhaxaysa two rocks, laba dhagax oo waaweyn ama laba jamal. He got stuck between two rocks, laba dhagax dhexdooda ayuu ku dhagay. Rock waxaa la yidhaahdaa dhagaxa. The president, madaxweynaha, was sitting waxa uu fadhiyay between inta u dhaxaysa the prime minister, ra'iisul wasaaraha, and iyo the speaker of the parliament, iyo afhayeenka baarlamaanka. The president was sitting between the prime minister and the speaker of the parliament. Among sidoo kale is a preposition waa meeleeye that applies oo khuseeya ama ku saabsan to a group of people, koox dad ah, or things ama shayaal. Among waxa ay la mid tahay oo macno ahaan ay la mid tahay ereyga between, u dhaxeeya, laakiin waxaa loo isticmaalaa wixii laba ka badan oo koox ah, ama dad ha ahaadaano ama shayaal ha ahaadaano. Tusaale ahaan, the 5 students, shanta arday, divided waxa ay qaybsadeen the money, lacagtii, among themselves, iyaga dhexdooda. The 5 students, shantii arday, divided the money among themselves, dhexdooda ayaa qaybsaday. Tusaalihii hore ee aanu usoo qaadanay tuuga ama the thief was hiding between the trees, haddii geedahaasi ay laba ka badnaan lahaayeen waxaa la dhihi lahaa the thief, tuuga, was hiding waxa uu isku qarinayay among the trees, geedaha dhexdooda. Hiding among the trees. The lion, libaaxa, is among the trees. Libaaxa wuxuu ku dhex jiraa geedaha. The lion is among the trees. Marka waxay tilmaamaysaa geedahaasi inay laba ka badan yihiin. Haddii laba geed ay ahaan lahaayeen waxaa la dhihi lahaa the lion is between the trees. A 10-year-old boy, wiil 10 jir ah, was among ayaa ka mid ahaa the injured, dadkii dhaawacmay.
A 10-year-old boy was among the injured. London, magaalada London is among waxay ka mid tahay the largest cities caasimadaha ugu waaweyn ama ugu balbalaaran in the world adduunka. London is among the largest cities in the world. I love him the most among my children. I aniga love him waan jeclahay isaga the most sida ugu badan among my children caruurtayda dhexdooda. yacni isaga ayaan ugu jeclahay caruurtayda. I love him the most among my children. I am sure he is the only one among his friends who can fly an aeroplane. I am sure anigu waan hubaa he is the only one isaga keliya weeye among his friends oo saaxiibadiis ku jira who kaasoo can fly duulin kara ama kicin kara an aeroplane diyaarad. I am sure he is the only one among his friends who can fly an aeroplane. And videogan horaantiisii waxaan kusoo sheegnay between in loo isticmaalo laba qof ama laba shay. Haddaba there is an exception to that rule. Xeerkaasi waxaa jira wax ka soo hadhay oo aan lagu dabaqin. Ingiriiska waxaa la yidhaahdaa in every grammar rule there is an exception. Xeer kasta oo naxwaha ama grammarka ah waxaa jira wax ka soo hadhay oo markaasi aan lagu dabaqi karin oo laga reebo. Marka between mararka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa haddii shayaasha ay kala duwan yihiin, haddii ay yihiin waxaa la yidhaahdo distinct and separate. haddii ay kala duwan yihiin oo distinct ay yihiin, separate-na ay yihiin oo ay kala durugsan yihiin ama ay kala duwan yihiin, waxaa markaasi la adeegsan karaa between xataa haddii ay saddex ka badan yihiin. tusaale ahaan, I want you waxaan doonayaa to choose in aad kala doorato between the white shirt, the yellow shirt and the green shirt. waxaan doonayaa shaadhka cad, kan jaalaha ah iyo kan cagaaran inaad kala doorato. markan oo kale marka wax lagu kala dooransiinayo ama adiga aad qof wax kala dooransiinayso, xataa haddii ay saddex ka badan yihiin oona ay kala duwan yihiin shayaashaasi, between ayaad isticmaalaysaa. laakiin hadday kulligood isku mid yihiin, haddii tusaale ahaan shaatiyaashan oo dhan ay midabka cadaanka wada ahaan lahaayeen oo labana ay ka badan yihiin, weli ammaanki ayaad isticmaali lahayd. waxaad dhihi lahayd I want you to choose among the white shirts. laakiin haddii ay kala duwan yihiin, markaasi between ayaad isticmaalaysaa. cashirkii maanta intaas ha inoo joogo. inta aynu ku kulmi doono cashirkan oo kale ah oo xiise leh, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.